haweeney ayaa maalin walba waxay u dubi jirtay qoyskeeda rooti. Markii ay shaqada dhameyso, xabad rooti ah ayay daaqada saartaa si uu qaato qof baahan oo banaanka maraya. Maalin walba waxaa daaqada soo mara nin waayeel ah oo qaata rootiga ay saartay haweeneyda. Intii uu ixtiraam u muujin lahaa dadka degan guriga, waxa uu dhahaa kuna celceliyaa, sharta aad samaynayso adiga ayay kula joogaysaa, wanaagga aad sameynaysana adiga ayuu kugu soo laabanaa. Maalin walba haweeneyda daaqada ayay rootiga saartaa, ninka waayeelka ah ayaana maalin walba ka qaata rootiga, isagoona ku celcelinaya sharta aad samaynayso adiga ayay kula joogaysaa, wanaagga aad sameynaysana adiga ayuu kugu soo laabanaa. Haweeneydii ciriiri ayay dareentay, ninkan maalin walba aad wanaagga u samaynayso haddana aan ixtiraamka muujinin waa maxay. Waxa ay bilowday inay isla hadasho. Maalin walba ayuu halkan soo maraa ninkan, hadalkan ayuuna ku celcelinayaa, bal muxuu kala jeedaa? Maalin maalmaha ka mid ah shaydaan ayaa u sheekeeyey, waxayna tiri horta waa inaan ninkan dilaa. Rootigii ayay sun ugu dartay. Marka ay daaqada sii saaraysay, culays ayay dareentay. Maanta maxaad samaynaysaa? Ma inaad qof bini'aadam dishaa rabtaa? Way ka laabatay ra'yigeedii hore, rootigii sunta lahaa dabka ayay ku tuurtay. Mid aan sun lahayn ayay samaysay, daaqada ayayna saartay si uu qaato ninkii waayeelka ahaa. Ninkii rootigii ayuu qaatay isagoo ku celcelinaya hadalkii, waana iska tegey. Maalin walbana haweeneyda sadaqa ayay bixisaa, iyadoona Allah ka baryaysa inuu u soo celiyo wiilkeeda oo muddo ka maqnaa, meelna aysan ku sheegin. Maalintaa ay damacday inay ninka sumayso laakiin ay ka laabatay, albaabka ayaa loo soo gargaraacay. Markii ay furtay albaabka, waxaaba taagan wiilkeedii oo muddada ka maqnaa, daruuf saa'idana ay ka muuqato, aadna u baahan. Markii ay aragtay laabta ayay ku qabatay, iyadoona Allah mahad celinaysa, waxa uuna ku yidhi, hooyo Allah ayaa mahadle ay kaa tusay, masaafo aad u dheer ayaan soo lugayey, wax cunto ahna maanan cunin, waxaan ku dhawaa in aan geeriyoodo, haddii aan Allah ay tusi lahayn nin waayeel ah, waxaan weydiistay inuu cunto isiiyo. Aad ayuu u wanaagsanaa ninka, rooti dhammaystiran ayuu isiiyey, waxauna ugu yidhi kani waa cuntadayda maalinkii, laakiin adiga ayaa iga baahi badan, ee cun. Markii ay maqashay haweeneydii hadalka, wejigeeda cabsi ayaa ka soo muuqatay, waxayna soo xasuusatay rootigii sumaysnaa ee maanta samaysay. Haddii aysan dabka ku tuuri lahayn, wiilkeeda ayaa cuni lahaa, sidaa ayuuna nolosha ku weyn lahaa. Waxayna garatay hadalka uu ku celcelinayay ninkii waayeelka ahaa, waxa uu kala jeeday, sharta aad samaynayso adiga ayay kula joogaysaa, wanaagga aad samaynaysana adiga ayuu kugu soo laabanaa. Samay khayrka oo ha ka caajisin intaad awooddo, haddii xitaa aan lagugu qadarinayn, maalin maalmaha ka mid ah ayaa Allah ka abaalmarin doonaa adduun ama aakhiro.